Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta nagu xiran ku soo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxaan idiin haynaa laba sheeko oo aad u xiiso badan, kuwaas oo isku daraya cabsi, sir iyo dhacdooyin qof walba ka dhigi kara inuu laba jeer ka fikiro marka uu la kulmo xaalad aan caadi ahayn. Sababtoo ah labada sheeko mid walba waxay leedahay dhacdooyin aan sahlanayn in la ilaawo. Sheekadeenna koowaad. Sheekadan waxay dhacday xilligii deerta ee sanadkii 1993. Waxaa jirtay gabar la oran jiray Ayaan. Waxay ahayd gabar 20 sano jir ah, welina ma aysan bilaabin jaamacadda. Waxay haweenkii ka shaqayn jirtay warshad samaysa caagadaha ama balaastikada, gaar ahaan qaybta diyaarinta alaabta. Ayaan waxay ahayd gabadha keliya ee ka shaqaynaysay waaxdaas. Markii ugu horreysay ee shaqada bilaabaysay, raggii ee la shaqaynaysay waxay ka shakiyeen inay awoodi karto shaqadan adag, laakiin muddo yar kadib waxay u caddaysay inay tahay qof dadaal badan oo aan si fudud u quusan. Shaqada adag waxay ka dhigtay qof xoog badan, waxayna kasbatay ixtiraamka dhammaan shaqaalaha. Isla waqtigaas, Ayaan waxay ka soo baxday xiriir aad u xun ah. Ninkii ay la joogtay wuxuu ahaa qof aflagaadeeya, garaaca, maskax ahaanna u dhibaateeya, sidoo kalena wuxuu lahaa bilood aad u xun. Markii ay dib u xasuusto waqtiyada ay la soo qaadatay qofkaas, Ayaan waxay aaminsan tahay in go'aankii ay uga tagtay xiriirkaas uu ahaa mid badbaadiyay nolosheeda. Habeenada ka mid ah, markii ay shaqada ka soo baxday, waxay ahayd qiyaastii 1:00 habeennimo. Nasiib darro, shidaalka baabuurkeedii wuu sii dhammaanayay, sidaas darteed waxay istaagtay kaalin shidaal si ay shidaal ugu shubato gaarigeeda. Iyadoo shidaalka shubanaysa ayaa waxaa u timid haweeney ay isku da'yihiin. Haweeneydu waxay u muuqatay qof aad u argagaxsan. Waxa Ayaan u sheegtay inaysan soo dagaalin ninkii qabay, kadibna ay bannaanka u soo baxday si telefoonka dadweynaha ay ugu wacdo saaxiibteed. Waxay kaloo gabadhii Ayaan u sheegtay in intii waddada soo socotay uu ka damiyay baabuur ay saaran yihiin rag badan, kuwaasi oo bilaabay inay foodeeyaan. Waxayna tilmaamtay inuu ahaa baabuurkaasi baabuur cagaar khafiif ah oo meel gees ah taagnaa. Ayaan markii ay eegtay, waxay aragtay baabuur ay dhex fadhiyaan dhowr nin, laakiin wejiyadooda si fiican looma arki karin. Haweeneydu waxay Ayaan u sheegtay inay ka baqayso raggan oo aysan saaxiibteed halkan ku sugi karin. Ayaan waxay aragtay in haweeneydu u muuqatay qof nadiif ah oo si wanaagsan u labisan, uma ekeen qof fasarqaansan ama daroogo isticmaalay. Sidaas darteed waxay go'aansatay inay caawiso. Waxaana ku tiri, soo ful gaariga, guriga ayaan ku geynayaa. Labadoodu waxay ka dhaqaaqeen kaalinta shidaalka. Waddadu waxay ahayd mid cidlo ah, maadaama ay ahayd habeen saq dhexe. Intii ay sii socdeen, Ayaan waxay gabadhii weydiisay meesha ay degganayd, laakiin halkii ay jawaab ka bixin lahayd, haweeneydii waxay bilowday inay mar walba gadaal u jeesato si ay u eegto baabuurkii cagaarnaa. Xitaa suunkii gaariga ma aysan xiran. Ayaan waxay u qaadatay inay cabsi darteed sidaas u samaynayso. Daqiiqado kadib, haweeneydii waxay bilowday inay gudaha gaariga eegto, kadibna waxay Ayaan ku tiri, boorsadaada lacagta xaggee taalaa? Markii ay Ayaan maqashay hadalkaas, aad bay u naxday, waxayna dareentay inay wax khaldan yihiin. Laakiin waxay is weydiisay, maxay iga rabtaa aniga oo wata baabuur duug ah, xiranna dhar shaqo oo caadi ah? Isla markiiba, haweeneydii gadaal ayay u jeesatay, iyadoona ku qaylinaysa, waa kuwan. Ayaan markii muraayad dambe eegtay, waxay aragtay baabuurkii cagaarnaa oo daba socda. Laakiin markaan codkii haweeneydu wuxuu isku beddelay qof aad u faraxsan. Waxay bilowday qosol waalan, iyadoona leh, wiilashoodu way ku qabanayaan, way ku dhammaatay. Markaas Ayaan fahamtay inay naagtan dabin u dhigtay. Haweeneydii waxay furtay sanduuqa gaariga, waxayna bilowday inay raadiso waxyaabo qiimo leh, iyadoona sidoo kale Ayaan ugu sheekaynaysaa waxyaabaha xun ee raggaasi Ayaan ku samayn doonaan markay qabtaan. Ayaan maskaxdeedu si degdeg ah u shaqaysay, waxayna aragtay isgoys ku aadan hortooda, waxaana waddada dhinaceeda ku dhegganaa samaafaraha waddada. Ayaan waxay xasuustay mindi yar oo ay shaqada ugu isticmaali jirtay jarista korontada, taas oo ku jirtay albaabka dhinaceeda. Waxayna sidoo kale ogaatay in haweeneydu aysan weli xiran suunka gaariga. Iyadoona iska dayacin fursaddaas ay heshay, ayay si xoog ah u kaxaysay gaariga, waxayna ka gudubtay isgoyskii ilbiriqsiyadii ugu dambeeyey ee nalka huruudda ahaa. Markay muraayadda dambe eegtay, waxay aragtay baabuurkii cagaarnaa oo ku xanimay isgoyska. Markii nalka cas ee samaafaraha soo muuqday, haweeneydii Ayaan gaarigeeda saarneed aad ayay ugu xanaaqday arrintaas. Laakiin Ayaan waxay qaadatay go'aan kale. Si lama filaan ah ayay bareegga si xoog leh u qabatay, maadaama haweeneydu aysan suun xirnayn. Madaxeed waxa uu ku dhacay dashboardka iyo muraayadda hore ee gaariga. Ayaan isla markiiba waxay soo qabsatay mindidii yareyd, waxayna iyadoo qaylinaysa naagtii ku tiri, ka deg gaarigayga hadda. Cabsi darteed haweeneydii waxay furtay albaabka gaariga. Ayaan way riixday ilaa ay naagtii bannaanka ku dhacday, kadibna si degdeg ah ayay goobtii ugu dhaqaaqday. Waxay martay waddooyin kala duwan si ay u hubiso in baabuurkii cagaarnaa
uusan mar kale ka soo dabagelin. Dhowr daqiiqo kadib ayay istaagtay. Albaabkii ay haweeneydu ka tagtay ayay xiratay, kadibna waxay u dhaqaaqday gurigeeda. Markii ay gaartay guriga, waxay wax walba ugu sheekaysay walaasheed. Walaasheed ayaa qalbiga u dejisay, laakiin sidoo kale waxay walaasheed ku canaanatay wixii ay samaysay, iyadoona ku tiri, maxaad qof aadan garanan gaariga ugu soo qaaday? Haddii aad aragtay inay dhibaataysan tahay, maxaad booliiska ugu wici weyday? Markii ayaan dib u fikirtay arrintaas, waxay ogaatay inay walaasheed ka saxnayd. Go'aanka ugu wanaagsan wuxuu ahaan lahaa inay booliiska wacdo. Markii ay gabadha ku aragtay kaalinta shidaalka oo ay halkaasi ku sugaan ilaa ay ka yimaadaan booliiska, nasiib wanaag habeenkaas ayaan way badbaaday. laakiin dhacdadaas weligeed kama bixin maskaxdeeda. Waxayna baratay in mararka qaar qof u muuqda inuu gargaar u baahan yahay uu noqon karo dabin aad u khatar badan. Hadda aan u gudubno sheekada labaad, halkaas oo qoys u maleeyay inay heleen gurigii riyadooda, balse ay ogaadeen in gurigaas uu qarinayay sidaan caadi ahayn. Markii ugu horreysay oo qoyska yimaadeen guriga lambarkiisu yahay 657, waxay u muuqatay sidii riyo u mooday qoyskan. Gurigu wuxuu ahaa mid aad u qurux badan. Wuxuu lahaa tiirar dhaadheer oo cadcad, balankoon weyn, iyo daaqad waaweyn oo iftiinka ka soo galaan. Aabbaha qoyskan Xasan ayaa gacanta qabtay xaaskiisa Saara, isagoona ku yidhi, ugu dambayn, kani waa gurigii aan sannado badan u soo halgamnay. Labadooda carruur waxay fadhiyeen kursiga dambe ee gaariga, halka sanduuqyadii ay ku jireen xasuusihii noloshooda laga soo dejinayay gaariga. Markii ay alaabta dejinayeen, deriskooda cusub ayaa si wanaagsan u soo dhaweeyey. Mid ka mid ah deriskoodii ayaa xitaa u keenay keeg si uu u soo dhaweeyo. wax walba waxay u ekaayeen bilow qurux badan, laakiin mararka qaar waxyaabaha ugu quruxda badan waxay qarin karaan sirta ugu mugdiga badan. Habeenkii labaad ay guriga joogeen, markii la gaaray saqdii dhexe oo ay carruurtu seexdeen, Saara ayaa bannaanka u soo baxday si ay suuli ugu aado. Markii albaabka timid, waxay aragtay bashqad cad oo albaabka taala. Dusha warqadda waxaa ku qornaa, ku soo dhowaada gurigiina cusub. Saara waxay furtay bashqaddii. Gudaha warqadda waxaa ku jiray warqad si taxaddar leh loo qoray. Qoraalka ku qoran warqadda wuxuu ahaa, qoyska cusub ee soo degay gurigan soo dhowaada, kuna soo dhowaada xaafadan. Muddo 10 sano ayaan gurigan ilaalinayay. Ugu dambayntiina waxaa dib u soo laabtay dhiig cusub. Carruurtiinu aad bay ii xiiso geliyeen, waxayna bilaabeen inay ku ciyaaraan bannaanka guriga. Markii Saara akhriday erayadaas, wejigeeda wuu bedelmay, waxayna dareentay in qofkani uusan ahayn qof caadi ah. Xasan markii uu arkay warqadda, wuxuu isku dayay inuu arrinta fududeeyo, wuxuuna yidhi, qof baa nala kaftamaya. Kadibna warqaddii ayuu jeexjeexay, laakiin Saara qalbigeeda kama bixin dareenka ah in arrintani aysan ahayn kaftan. Toddobaadkii ugu horreeyey markii ay guriga soo degeen, waxay bilaabeen inay la qabsadaan jawiga gurigan. Habeen kasta waxaa guriga laga maqli jiray shanqadh aan caadi ahayn. Alwaaxyada ayaa mararka qaar dhawaaqi jiray, albaabadu way guuxi jireen. Saara iyo Xasan waxay isku qanceen inay tani caadi tahay maadaama guriga uu duug yahay. Laakiin maalmo kadib waxaa u timid warqaddii labaad. Markan warqadda waxaa si toos ah loogu soo qoray magacyadooda, waxayna ahayd, waxaan arkayaa inaad bilowdeen hagaajinta guriga. aad buu u qurux badan yahay. Inkastoo aan jeclaa inuu ahaado sidiisii hore, ma gasheen dhammaan qolalka guriga. Waxaa jira meelo qarsoon oo gurigan ka mid ah oo aydan arki karin. Meelahaas waad arki doontaan marka waqtigu la gaaro. Markii Xasan iyo Saara akhriyeen warqaddaas, cabsi dhab ah ayaa gashay. Qofkani wuxuu ogaa dayactirka ay si qarsoodi ah ugu wada hadleen labadooda. Wax la yaab kale ayaa ahaa, dayactirka gurigan uma aysan sheegin deriskooda, xitaa qofkii ka caawiyey iibsiga gurigan. Markan Xasan uu aamusay, wuxuuna fahmay in arrintu aysan ahayn kaftan. Waxayna la xiriireen booliiska, laakiin baaritaan kadib booliiskii ma helin wax caddayn ah. Boolisku waxay Xasan iyo Saare kula taliyeen inay keediyaan wixii waraaqad ah oo had kadib la keeno, laakiin waraaqaduhu ma joogsan. 2 maalin ama 3 maalin kasta waxaa albaabka la soo dhigi jiray bashqad cusub. Mar waxaa laga soo gelin jiray albaabka hoostiisa, marna sanduuq boosta ayaa lagu reebi jiray. Dhammaantood waxaa ku saxiixnaa hal magac, magacaasna waxa uu ahaa ilaaliyaha. Mid ka mid ah waraaqadaha wuxuu ku qoray, weli ma aydan helin miyaa qolkii qarsoonaa. Erey kasta waraaqadaha ku qornaa wuxuu sii kordhinayay cabsida qoyskan. Xasan habeen kasta wuxuu hubin jiray kaamiradaha amniga. Saare waxay qorax dhaca ka hor xiri jirtay daahiyada oo dhan. Waxay isku dayeen carruurtooda inay waxba dareemin. Habeenada ka mid ah, iyadoo Saare wiilkeeda sariirta seexinaysa, ayuu si degan u yidhi, hooyo, ninkii deerka taagnaa maanta mar kale ayuu gacanta ii haadiyey. Hadalkaas wuxuu Saare geliyey cabsi weyn. Waxay ogeed in ilmuhu uusan sabab la'aan u sheegi karin arrintaas. Subaxdii xigtay markii Xasan shaqada aaday, Saare waxay u baxday dhinaca dambe ee guriga. Halkaas waxay ku aragtay raadad waaweyn oo dhoobo ah oo ku dhammaanayay deerkii alwaaxa ahaa. Markay si fiican ugu fiirsatay, waxay aragtay 3 eray oo qoryaha lagu xardhay, waxaana ku qornaa, waan ku arkayaa. Qoraalku ma ahayn mid cusub, wuxuu u ekaa mid muddo dheer halkaas ku yaalay. Markii ay warqadihii la keenayay gurigaas sii bateen, hurdadii qoyska way yaraatay. Sanqad kasta waxay u ekaan jirtay qof guriga dhex socda. Cabsi ayaana si tartiib ah u qabsatay noloshoodii. Maalmaha ka mid ah,
xasan iyo saara oo saqafka sare wax ka raadinayeen waxay arkeen meel sagxadda ka mid ah oo ka duwan qaybaha kale. alwaaxdu waxay aad mid cusub. markay riixeen waxay dareemeen meel bannaan. waxay soo qaateen nal gacmeed kadibna waxay fureen alwaaxdii. hoosteeda waxaa ku jiray qol yar oo qarsoon. gudaha waxay ku arkeen waxyaabo yaab leh, sawiro qoyska oo lumay, baabuurkii yaraa ee wiilkooda, iyo xitaa waraaqadii ugu horraysay ee gurigooda la keena oo dib lisugu dhejiyey. laakiin waxa ugu cabsida badnaa waxa uu ahaa kaamirad shidan oo aan iyagu lahayn, nalkeeda casaanka ahaana weli shidan yahay. xasan aad buu u naxay. intii ay yaabanaayeen cod ayaa si lama filaan ah ugu yeeray dhuunta habamareenka. codku wuxuu yidhi, ugu dambayn waad ii heshay. labadoodaba cabsi darteed ayay ugu carareen qolkii, waxayna isla markii waceen booliska. markii booliska imaadeen qolkii qarsoonaa wuxuu noqday mid maran. kaamiradii, sawiradii iyo waxyaabihii kale dhammaantood way maqnaayeen. waxa keliya ee ku haray wuxuu ahaa boor iyo urta cadar uusan xasan lahayn. boolisku toddobaadyo ayay baariyeen gurigaas, laakiin ma aysan helin wax caddayn ah. waxa ugu yaabkadanna wuxuu ahaa sidee ayuu qofkani ku ogaaday waxyaabaha qoyskan ka hor intii aysan xitaa guriga si rasmi ah u soo degin. 3 bilood kadib qolkii qarsoonaa waa la xiray, qufulo cusub ayaana lagu rakibay, kaamiradihii amniga ahna waa laga qaaday. laakiin nabaddii guriga ma noqon sidii la filayay. subax kasta waxaa la ogaan jiray ay meelihii yaaleen laga bedeli jiray. mar koob ayaa dhinac loo rogi jiray, mar sawir derbiga saarnaa ayaa la qaluucin jiray. xasan wuxuu isku dayay inuu Sahra ku qanciyo in tani ay tahay cabsi ka dhalatay wixii hore u dhacay. laakiin habeen kasta Sahra waxay maqli jirtay tallaabooyin tartiib ah oo dabaqa sare lagu socdo. habeenada ka mid ah waxay miiska jikada dushiisa ka heshay warqad cusub. warqaddu waxaa ku qornaa, ma ahayn inaad xitaan qolkii ii qarsoonaa. Sahra isla markiiba waxay ku tuurtay dabka. waraaqadii way gubatay, laakiin urkii qadkii warqadda ku qornaa weli guriga ayaa laga sii urinayay. ilaa maanta cidina si dhab ah uma oga qofka isu magacaabay ilaaliyaha. laakiin sheekadan waxay noqotay mid ka mid ah sheekooyinka ugu argagaxa badan ee looga sheekeeyo guri ay dad u malaynayeen inuu noqon doono bilow cusub, balse ugu dambayn isu bedelay meel cabsi iyo sir aan dhammaad lahayn. waad ku mahadsantahay daawashadaada. falna haddii aad intaan nala soo gaartay janaalka subscribe noo saar, like na kiilowin.